hani adiga qabtidaad ii sheegtay oo naag la qaba ay tahay oo caruurna ay ku hayso shan allah barakeeyo maasha allah. marka gabadhan wiilkayga oo ii keen waxay ugu soo sheekaysay iidan afkeeda ii sheegtay inaan la qabin oo caruurna aysan lahayn. aniga nin ima qabin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad taas ay idin dhahaya mideeda kale marka kamaal madaxiisa ilmo ah u inkiraayo waaya ugu inkiraa ii sheega. hani muumin maxamed waa gabar marwe ah, nin ayayna leedahay, saddex daraaqo nin baa ku qaba. barteeda youtube-ka subscribe saara gambaleel furas. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك وحنا برتيدا يوتيوب-ka meel walbo dunida aad ka joogtaan isku soo noqod wanaagsan. mar hore suuqiin dambeysay hasa ahaatee maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta ayaantan la hadal hayo ee youtubero badan ay ka soo hadleen, tiktokna la hadal hayo. arrintaasoo ah youtuberka Kamaal Cabduul iyo gabadha la joogta oo ah gabar la sheegay inay tahay marwo awlaadna leh kana soo tagtay Sweden una tagtay ninkaas Kamaala. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. maxaa ka jira arrintaas? dad badan waa ka hadleen, ma barankiya ma dhaba, waxyaabo badan ayaan rabaa inaan idin bidhaamiyo. marka soo dhawaada horta marka koowaad gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa hani muumin maxamed. hani muumin maxamed hani muumin maxamed waa gabar marwe ah, nin ayayna leedahay, saddex daraaqo nin baa ku qaba. magaciisana waxaa la yiraahdaa cabdisalaan cali xaashi. aniga cabdisalaan cali xaashi aqoon uma lahayn, laakiin markii arrintan ay timid waxaa isoo wacay dad kamid a aniga qoyskayga, waxayna igu dhaheen ayuu cabdisalaan ma taqaanaa? markaasaan iri maya. arrintaas ma la socotaa? asaan iri maya. waa baaray, tiktokan fiiriyey, youtube-kan fiiriyey, waa arkay. cabdisalaan waxaa lagu yiri waa walaalka. markii aan baaray aniga cabdisalaan oo aan soo ogaaday waxaan isku nahay cabdisalaan waa nin aniga in adeerkay ah, qaraabo dhowaana, ilmo adeeraan nahay. cabdisalaan waan isla hadalnay, afkiisa ayuuna iiga xaqiijiyey in gabadhu ay tahay xilihiisa, awlaadna ay u hayso. sidoo kale wuxuu ii sheegay in gabadhu ay wanaagsanaa jirtay oo ay ahayd qof fiican, hase ahaatee uu la yaaban yahay waxa maray. wuxuu kaloo cabdisalaan ii sheegay in uu la xiriiray wiilka gabadha hadda sheegtay inay tahay xaaskiisa ee Kamaala ee youtuberka waalidkiisa, inuu la xiriiray oo ay waalidkiisuna yihiin dad aad u wanaagsan. Kamaal aabihiis iyo hooyadiis iyo walaalihiis ay yihiin dad wanaagsan, laakiin Kamaal oo hooyadiis iyo aabihiis hadal ka diiday markii ay ku dhaheen warniyo waa naceebeen gabadhan nin baa qabee ka tag, oo hadal ka diiday. taasna waxay ku cadeynaysaa in Kamaal uu yahay nin xitaa ixtiraami waaye kuwii dhala asaga. iska dhaaf inuu ixtiraamee nin naagtiisii, iska dhaaf inuu ixtiraamee dadka bini-aadanka ah ee caadiga ah ee aan wax u ahayn, inuu ixtiraamo warkeeda kaba baxa. xitaa kuwii asaga dhalay, labadii asaga dhashuu ka diiday. qof qayaanoley ma ihi, qof qayaanaysana ma ihi. kamaalna sababtaa fahmayninbo kamaal aa ku qayaanaya. kamaaloo ninaa i qabay xataa ma aha, ninaa hadda i qabo. kamaalna waa guursado. horta caqligaas horta wax galaya horta keena. laakiin waxaa foolxumo ah, wax lala yaabo ah, oo wax lala argagaxa ah
kamaalow midaan aa samaysay wallaahi waa isbahdishay oo billaahi waa isbahdishay oo tallaahi waa isbahdishay aniga nin weyn oo lajana oo waxaan kuu maleynayay akhyaara laakiin wallaahi markii aan baaray oo aan soo ogaaday waxa siday u jiraan kamaalow dhiiqadii aan ku kaftami jirno dadku dhiiqal lugaha kula jirtaa iyo dhiiqal lugaha kula jirtaa iyo waxaasoo dhanba beebeena noqayan adigaa hadda dhiiqa lugaha kula jira adigaa gabar la qaba oo nin xilihiisa ah haysta oo kula joogta ma dhiiqa ka weynaa jirta laakiin waxaan la yaabanaa gabadha macnaha waxa sidaas ka dhigay oo saas dhan doqon uga dhigay oo saan dhan ka dhigay oo rabaayadda ka dhigay waxaan u maleynayaa gabadhaas kumana dambaabi kara mana hube in wax kale loo walaaqay arrimo aan isleeyahay hadda maba ku dambaabi karo anigu ma dhihi karo kamaal waa sixroole laakiin waxay ila tahay wax sixir weyn maxaa yeelay gabar haysata ilma waa weyn gabadheeda weyn waa 21 jir gabadhan dumaashiday ah wax noocaas ma sameey karta dee gabar yar xataa haddii ay ahaa lahayd waxbaan dhihi lahayn kamaal qofka hadda kula joogo hooyada ay ku facta adina waxaad ka raadinaysaa dhoof iyo inay ku dhoofido iyo waxyaaba noocaas haddaan kula hadlaano ayuub kaarlaan kula hadlaa gabadhaas waa aniga dumaashiday nin walaalkay ilmo u dhashay xilahaaga weligeed ma isan noqon mana noqon karto wax baraankii ma jiraan nin ilaahaygaaga u laabo ninka gabadhaas qabana wac cafi ku dheh xitaa waxaad macnaha bloog saartay ilmaheeda markii ay kuu sheegeen in gabadhu ay tahay hooyadood aabahoodna uu qabo bloog baa saartay kamaalow marka dhammaan inta kamaal garanaysa ama jecel wanaagiisa u sheega runta si hoosana ugu sheega si publicana ugu sheega arrintan aniga waa arkayay in maaragtay ay meel xun ku socoto hase ahaatee caddeynta oo dhammaystiranne waxaa la soo gelinayaa laakaha media cabdisalaankii naftigiisii baa hadlaya cimraan laakaha u tegay gurigiisa ugu tegay maasha allah wuu wareystay cabdisalaan oo hadlayana waa arki doontaan haddee intaasna anaa idiin xaqiijiyey ninkaas waa aniga walaalkay gabadhaasna waa dumaashiday ilmo aan adeer u ahay dhashay kamaalne dhoof buu ka rabaa inay dhoofido iswiidhangeeduu ka rabaa laakiin si xunu wax u raadiyey kamaal lacagta aa ku dhoofayso annagaa kuu aruurinayno annagaa ku siinayno haddaa rabto inaad dhoofto soomaali kalaa buuxda gabdha shidanaa buuxa gabdha qurxoonaa buuxa gabdha adiga gayaankaagaa buuxa laakiin tan waa isku ceebaysa waayuu kaa loo soo in la guuleysta meel walbo dunida aad ka joogtaan haddii ay taa markii idinkugu horreeday aad soo booqataan barteeda youtube-ka subscribe saar gambaleelka furo si aad ila socoto mar walba